ururka al-shabaab waxay si ula kaca maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dawladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dawladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dawladda iyo inay mabda'a al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeeddooyinkii loo aasaasay. 15 bishii May ee aynu soo dhaafnay Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Beled Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu u tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoondhawe ka hor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan dadka kale oo isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horey gudoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Beled Xaawo aniga aan hadda buu yiri waxaan rabaa meesha degantaan oo inaad meesha degantahay oo sheekaysano muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imana arki kara kurigeega ay yaala sabtaasaan ku yiri markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idin soo maro inoo soo maro raadinay markii uu sheegtay inuu ka soo goostay al-shabaab bishii Janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas'uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeello gaarsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyay inuu doonayo inuu ninkaasi xorriyad siiyo isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa ربوتكاس قريب ومقالني لكن طبعا هذا أنا كده إنه مدي لنا جانس إنه مدي لنا مو سنهلي كريم أنا كمان عندي إنه كل ما له وعسكري جالسوا نجد لي ما واحد كو أمتين نين صاروا شباب ولا جيابا إنه معلومات بحيو ما واحد كو أمتين قفلة يقانوها أو هل أحان ما رجتي دو محل لو آمنين نينكاس هارون شباب ولا الشباب هلد ملهن دوانا لقما آمنوه أنا وحا كآمن سنة شباب مدرر بالدرر هاي وأنا لا درر دورا بإذن الله تعالى أنت أنو لهاي محان أوغا أنا قف كستا أو صومالي أو مسؤول قفك الله صو درر هاي أو الشباب كو دلها هاي مثل بدك أو وحيقا إنو يهاي أيضا أو قبيال الصومالي اللي قرر لغو فيرنا يقف كان يقف فيه بلا يهاي أنا الحرين أنا التابن أنا كن لي لكن أنا شخصيا قلبي يارنتس وإلهي وكسي فيه mana ii suurta gasho qof shabaab inaan helid ku soo dhaweysto laakiin waxaan rabnay inaan maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo ciidankana inuu suudo inay daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka Gada ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen al-shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dawladda federaalka midna 13 bishii Febraayo ee sanadkii hore 2017 Isaaq Boorow Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa al-shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhaweyn u sameeyay una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawirro iskaga qaadeen Isaaq Boorow Cali waxa kadibna loo dhaadhiciyay xarunta dhaqan celinta taasi oo ka qalin jabiyay sanadkan horaantiisii isagoo qaatay lacag dhan $1,500 oo la siiyo dadka ka qalin jabiya xarumahaasi toddobaadkii aynu soo dhaafnay Isaaq Boorow Cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed meel u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Awdiinle askari kalena dirqi ayuu uga baxsaday waxa uu qaatay labadii qori waxaana uu dib ugu laabtay al-shabaab Maxamed Cali Abshir waxa uu ahaa ninka kale ay isku maalin soo goosteen Isaaq Boorow Cali isku maalinna waxay ka qalin jabiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada Baydhabo Isaaq Boorow Cali gobolka Bay ma dhaafsano waxaan u malaynayaa adii meelahaasi shaqadii meelahan shabaabku joogan oo ka maamulo Idaaliya qaarkaas inuu joogan kalaya hada laakiin inuu baxayna xaqiiq weeye warkaas waa gartay markuu baxayay muxuu sameeyay markuu baxayay wuxuu sameeyay niman buu ka xiisay markuu meel dhac la marayo waxa ay sheeg nin buu qori ka qaatay ninka markuu ka qori ka qaatay ka kalena banaan buu u yar baxay
markuu banaanka u yar baxay kii agtiisa joogay waa bad ku dhuftay kii adiga bad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheegay asiga badda markuu maqlay oo yuu meesha kasii kacay, markuu kasii kacay uu habadeeyey. saasuna ya maxaan ku rahday say hooshu dhacday. marka imise qori buu qaatay? 2 qori aa ka fadhisabina. hal askarina wuu dilay? hal askarina wuu dilay. maxamed cali abshir waxa uu ii sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu al-shabaab dib ugu laabto, waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta Baydhabo oo dib ugu laabtay al-shabaab, waxaana ka mid ahaa Ciise Lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mid a ilaalada wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed. 3 toddobaad ka horna dib ugu laabtay al-shabaab. dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna 2 ka mid a ragga ka soo qalin jabiyey xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sarkaal ka tirsan booliiska magaalada. raggaasi waxaa ka mid ahaa Kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi. bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017 oo ku beegnayd bisha Ramadaan, rag hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada Baydhabo ku dhex toogtay wadaad caan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sheekh Madeer Madgaab Cali. 3daasi nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdulaahi Ibraahim Qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisiina qaatay. mas-uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqayn jiray al-shabaab, xaruntaasina uu ka maqnaan jiray wakhtiyo badan isaga oo bixinayay cudurdaaro kala duwan. xasan Qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im. wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxaa hoos yimaada 3 xarumood oo dhaqan celin ah, kuwaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo, waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka hadhay dagaalka. waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2,000 oo dad ah oo ka soo goostay ururka al-shabaab, kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga. hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya al-shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka al-shabaab, marka ay hawshooda gutaanna ay dib ugu laabtaan. mid ka mid a saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeya barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 10% dadka soo goostaa ay dib u laabtaan. mid ka mid a saraakiisha ka soo goosatay al-shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin. cumar maxamed abo ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab. dadka oo ka soo goosanaya al-shabaab dhammaantood ma aha daacad. waxay iskugu jiraan 2 kooxood, koox oo dhab ee ka tahay iyo koox hadaf leh. hadafkooda waxa u kala qaadaya inay tahay 2 ayay leeyihiin, hadaf ayay ka leeyihiin markay soo goosanayaan. mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiiliyaan xerooyinka ay ku helaan, ee dhahaan raggii aad u timaadeen waa naga soo tagteen, meesha imaadeen calmaaniyad baa joogto, diintana laguma dhaqmo, dib usoo tashkiiliyaan markay dhibaatooyinka la kulmaan ee fursad ku helaan. iyo dad meesha ku hela ammaan, halkaasi markay ammaan ku helaanne oo la aqoonsado oo dawladda markaas u fasaxda magaalooyinka inay kala galaan, kabacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan, si ay markii loo soo qabto loo dhaho xerisrintii ku jira ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho, kabacdina meeshaas dhibaatooyinkiisa uga sii wato ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto. marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xerisrindi waxay siinaysaa caddayn qofkii inuu meel kasta tegi karo, meel kasta mari karo, isagoo hawlihiina u fulinaya al-shabaab. sax, meel kasta inuu tegi karo, meel kastana u mari karo, howlihiina shabaab u fulinayo, isla markaana dhibaateynayo dadka muslimiinta ahay, isla markaana dhibaateynayo qofkii si run ah isku soo dhiibo oo markii la tashkiiliyey kabacdina madax adeegay, kaasna waa beegsanayaan. waxay beegsanayaan waa dawladda, waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tegey, ee hadhowtii xerooyinkii iyo meelaha kasoo tegay dib inuu urufiyaan ee u diidayaan, usoo jaajuus u diidayaan, kuwaasna waa beegsanayaan. marka hadafyada ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dawladda ah, ayagoo haysta waraaqado ay jidadka ay ku mari karaan iyo aqoonsi. hadhowti markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa waa sii daya waraggii soo dhiibay, oo halkaasan uu ku hela ammaan buuxdo si oo wax howlihiisa u fusho ilaa uu ka fashilmo. guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo caddeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin al-shabaab loona soo xukumay dembiyo la xidhiira argagixiso, islamarkaana soo dhammaysta xukunnadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada 1 ee militariga Soomaaliya.
usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan al-shabaab oo soo galay faldembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen qofka lagu soo eedeeyo al-shabaab balse caddaymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta waxaa kaloo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta al-shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed waxaa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay tusaale ahaanna dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista taas beddelkeedana ku soo degay mas-uul ehel ama qof kale oo asxaab ah hase yeeshee wakhti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan al-shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga go'aanka lagu hor joogsaday in al-shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23 bishii Febraayo sanadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayey xubnihii al-shabaab ee maxkamadaha soo maray mid ka mid a dadka hore looga sii daaya xabsiyada dowladda ayaa toddobaad ka hor mar kale loo soo dacweeyey falo la xiriira al-shabaab waxaana mar kale la hor keenay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute imise qof oo xabsigooda dhammaystay oo shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayey kadib loo soo dacweeyey falo la xiriira shabaab way badan yihiin dadka noocaas ah xilligaasi markii oo waxaa lagu maqaalaa dadkii aan horta oo la geey jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin tiro 64 qofooda ooda laga qaaday taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhamaystay qaybtii oo ku naqatay shabaabka ama qaybtii oo looga shakiyay in dib loo soo dacweeyey dad bil walbo amba 2 bil kasta dhowr qofooda la keenaa hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 kamida la maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay shabaab dib ula midoobeen ayaga laftigoodana markaa weydiiso ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood kiisaska hore loo xirayna maxaa kamid ahaa labadaa haddaad soo qaado toddobaadkan maxkamadooda kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid kamida 2016 dhammaadkeedii oo wuxuu dhamaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhamaystay maxkamadda hore ugu heshay markuu xabsigaas dhamaystay wuxuu kamid ahaa dadkii laga dalbaday hay'adda dhaqan celinta Sarandi qaybta Sarandi in ay qabato kamid ahaa Sarandi heshiiskaas iyo xasan galnay dhaheen saasay ku suuragali weysay inay qabtaan kadib saas oo banaanka uga baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda dambi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhamaystay qaab kaloo loo hayay oo qaab maxkamadda iyo xabsiga weyna ugu sii jiri kara malaha dambigu galay maxay ahayd markaas shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd haddana maxaa loo soo xiray inuu argay shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan uu dib ugu laabtay 30 bishii November 2014 Faisal Yusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhameystay xabsigooda ayaa maxkamadda militariga ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain Faisal Awliyo iyo 64 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray al-shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen Faisal Yusuf Aadan wuxuu kamid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkaani oo xeelada dhaqan celinta ay marka hore dadkii ogoladu ka mid yahay wuxuu ka mid ahay dad la soo qabtay oo hay'adaha ammaanka ay soo qabteen ay garsoorka hor keeneen iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkaani ka tirsanay shabaab kaliya in dambigaas in ay ku heshay wayna ku heshay kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay xabsigiisaas wuu dhamaaday 2014 taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 11aad sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkaani dembigii intii la ekay garsoorkuna oo saaray waxaa loo baahday in Sarandi la geeyo maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xirooyinka dhaqan celinta la geeyo marka xilligaasi 2014 maxkamaddu waxay geysay Faisal waxay geysay xirada dhaqan celinta Sarandi hadda xamar ku taalo taasi muddo inta saas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda Faisal